السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي قيمها بدل لي ميل كسو أدونك كجوجتان دمان waxaa ku salaamtay salaanta islaamka assalaamu calaykum. waxaan rajeynayaa dawlad dhammaan sano caafimaad qabeen ay ku dhamaanado caafimaad qabtaan oo aad igu faraxsantiin dhamaantiin waxaa idin rajeynayaa khayr iyo wax yar oo kale. maanta waxa idin soo gudbinayaa odiga awaadeer ha caadi u guursaday awaadeer oo xaaskiisii loo meheriyay cusbayd odayga ficlaha meeshaas waa dhagax dhigay. horta muuqaal baa idin soo qaadanaya ugu horeyn saa si fiican xaaskiisa ugu aragtaan kadibna sawirada idin soo qaaday kadibna wixii xog ah ayaa idin sheegaya aad iyo aad u maasantiin. waxaan ka codsanayaa like iyo share iyo subscribe inaad kanaalka isku darto muuqaalka inaad like garayso waa muhiim meel fog ayuu noo gaariyaa bal haddana aan soo daawano awaadeer kani waa showgii farxiya kabayare ma waa showgii farxiya fiska ee jigjiga xaaskiisa iyagoo isku reer Hargeysa ah ayay ilaa halka uga tageen isaga xaaskiisaasi jigjiga awaadeer wax yar muuqaalka in yar baan ka soo qaadanaya muhiim ah inta uu moodan wax yar oo idinka idinku talagal ka soo qaadanaya. odaygii inna ilaahi raajicuun adduunka waxa haddaad maqasho qofkaasi ficil buu u guursaday yaa qofkaasi waa ficil guursaday haddaad maqasho waa awaadeer haddaad maqasho qofka nafta loo huray macnaha niyo qofkaas waqti ay adkeed ayaa nafta u hurayna macnaheedu waa sida inanta imka u guursado kale. laakiin awaadeer miyaanay ahayd in marka hore xaaska niyo soo yargeliyo xijaab iyo wax suti garansa si najmanashaad oo kale markuu najmanashaad israacayaan kafanka dabcan inta badan shaari suwaal mu ogolaan jirin awaadeer marka halka waa ka yar saranta odayga sidii gaal ha uu fikirin sidii gunta ha u halgamin wallahi ninku waa dhaaraya sidii buurta ha igu damin aniga waan ku saasaan u jiifaaye ha soo degin aniga ha igu soo degin gebigayga dhanba aniga gebigayga saa ha ii fuulin le waan dhimanayaaye haye 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 sidii gaari ila soco sidii gacalna aniga ii riyaaq haye sida aniga gaban waxay igu haaskin gaban anoo gabano carruura anoo geelay garaaca adiga waa iska hadal ma garanaysaa waa iska waa lahjada Soomaali galbeed odayga iiga horaya horta muuqaalkaas inta isaga joojinaa ereyada hadii aan jirto istaagno run ahaantii heesta waa qiso dhaba qiso sax weeyaan sidoo kale hadii aan wax yar barnaamijka ka talaabo ninkan xaaskiisa hore waxay ahayd najmanashaad oo ay kala tageen hadda oo ah xaaska nin asnagana hadda social media ku jira aniga waxaan ku bartay najmanashaad laakiin markii commentiga lagu soo qoray maalin hore reaction ka bixiyay arrinkooda lagu yiri waa fanaan hore oo magaciisa la yiraahdo Bashiir ninka waxa la yiraahdaa najmanashaad maadaama ay hadda tahay xidigad waa qofka kaleed gariyay xidignimadeeda ama xidignimada Ilaahay buu dhaliyay laakiin waa qofka ka dambeeya maanta baa la yiraahdaa inay noqoto najmanashaada Afrika Aasiya Amerika iyo meel kasta laga yaqaan shanta qaarad laga yaqaano inay najmanashaad noqoto waxa ka dambeeya oo fankeeda halka gaarsiiyay baa la awaadeer waxa la yiraahdaa jacayl uu u qabo aawadi
dowladda baa waxa dadka dhalinta u dhow oo qaba aawadeed ayaa waxa uu uga hormariyay isaga fankiisa asaga ku jiray laabtu gashaday waxa uu fankeedii ku fangareeyay oo ayada ayuu wax ka dhigay ayaa la dhahaa laakiin markasta jacaylka horta marka kale waa markaad ogaayso fanaanimadu inay faa'iido lahayn magaca qalbiga jacaylku waa ixtiraam jacaylku ma aha oohin iyo kuma yimaado calaacal sidiisaba qofka fanaanka ana marka ay noqoto ilaahay qaar uu sakhira mooyaane daraja lagu raaca ninkan waa fanaan Soomaaliyeed iyo qofka inanta fanaanadaba wax lagu raacay inta magac lagu raaca marka hadii aad magac samayso dabcan jacaylku waa yaraan dadka jacaylka ku raacaya aad u tayaraanayaan annaga iyo idinkaba waa ognahay waa kaleeta darajada wuxuu raacaya wuxuu noqonayaa lacag raac magac raac waxa ay iska hoos galiyaan jacaylkood ma aha jacayl sax ah insha Allah horta reerkan ha ka dhigo reer isku fiicnaada reer miduu ku dagay ilaahay awaadir hawliga sibaha awaadir anaga ayaa social media nugula jira odaygaas waa hambalyeynaya hadaba odaygan awaadir ayaa waxa la sheegayaa in meherkiisu dhacay maaltii ka horeysay asaga oo marka runta laga hadlo odaygaas adiga la yiraahdo iska magaranaysaa ishi ficil guurso oo kale saasay u taqaana dadku jacayl waa jira laakiin ficil guurso maadaama oo ay dadku markiiba soo xasuusteen najmarasha markii saa u guursaday awaadir meeshii laga buuxiyay odiga awaadir ahaa waa iskeenay markiiba waxay soo galeen sawirada halka ay soo dhigi doono awaadir aniga shakhsiyan waa wata soo kale najmarashaad iyo qoyska kale waa wata awaadir iyo qoyskana waa wata labadaba waxa kala gaxaya calafka marka horena calafka isku geeyay qadarta Allah kala gaxaysay labadabana waa uu wada hambalyeynaya horena waa ugu hambalyeynay najmarashaad xaqiiqdu waxay tahay waa inuu cawaaladeerna si cad u dhagax dhigtay xaas cusub aad u mahadsantihiin inkastoo aanay qurux badnayn ka youtuber ahaan ee waxyaalaha qaar ka hadal aniga inama qurux badno dadka waa qaar oo ka hadlaan laakiin aniga hambalye ahaan ba iga tahay ka video ahaan reaction ka bixiyana way iga ahayd qoys kuma yadayna u hambalyeyneen oo ana ka meelaha community soo dhigay dabcan aad u soo fariisanay meelaha qoyska way iskuurteen wax inta badan anaga kameel qam ahaan wax loo fiican ma aha laakiin aw hambalyeynay aad u mahadsantihiin hal dabcan xogtana dad badan oo xasuugay kanaalkayga ku xiran ayaa dabcan jeclaa inay xogta helaan dadkan isku soo isjecel dadkan waa dad isxalaashaday ilaahay ha isku barakeeye markaas qoyskaasi waa qoys jira aad u mahadsantiin walaalkiin urlaab sifaya idin sheegay aad u mahadsantiin waxaan ka codsan lahaa hadaba ugu dambeyn muuqaalka like iyo share iyo subscribe ina isku darto si uu meel fog insha Allah inuu gaadho qoyskan inaad barta comment ugu dacayso hadii ilaahay uu daleeyo